asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaashada qiimaha qayaamada kusoo dhawada barnaamijkeeni caafimaadka xubinteena caafimaadka maanta kale cabiriska ka hadli doono insha allah maanta waxaan ka hadli doonaa cabirada amba miligramiska amba gramiska amba noocyada kala duwan cabirada loo isticmaalo insha allah hadduu ilaahay ogolaado taasoo noqon doonta insha allah mid faa'iido aad iyo aad faa'iido u leh lagana faa'iidaysan doono insha allah inagoo qayb usoo dayn doona insha allah hadduu ilaahay ogolaado maanta qaybta ugu horeysa soo dayn doonaa insha allah bismillaahi kariim taasoo markaa insha allah soo dayn doono haddaba haddii aan maanta ka hadalno waxaa loo yaqaana measurementga oo xalaa loo soo gaabiya haddaynu ka hadalno gm waxaa loo soo gaabiya amba g grams baa loo soo gaabiya milligrams waxaa loo soo gaabiyaa milligrams baa mg milligram loo soo gaabiya mcg microgram baa loo soo gaabiya l haddaad aragto litrit baa loo soo gaabiya ml milliliter baa loo soo gaabiya cc cubic centimeter baa loo soo gaabiya tsp teaspoon baa loo soo gaabiyaa tbsp tablespoon baa loo soo gaabiyaa oz ons baa loo soo gaabiyaa kg kilograms baa loo soo gaabiyaa ips pound baa loo soo gaabiya iyadana haddaba haddaynu samples insha allah bidmillahi ka soo qaadano samples halka mg wuxuu ku leeyahay kun mcg buu ku leeyahay halka gmna wuxuu ku leeyahay amba halka gram milligram wuxuu ku leeyahay kun milligram buu ku leeyahay halka litrna wuxuu ku leeyahay kun ml buu ku leekaanayaa halka ml isaguna wuxuu ku leeyahay 1cc ayuu ku leeyahay 5 ml iyaduna waxay ku leekaanaysaa 1 tsp 1 teaspoon ayuu ku leegtahay 3 teaspoon waxay ku leekaanayaan 1 tbspoon amba tablespoon 15 ml waxay ku leekaanayaan 1 teaspoon table bay markaa ku leekaanayaan 30 ml wuxuu ku leekaanayaa 1s buu ku leeyahay halka ons wuxuu ku leeyahay 2 tablespoon buu ku leeyahay 8 ons isaguna wuxuu ku leekaanayaa 1 cup ayuu ku leeyahay halka kilogram amba halka kilogram wuxuu ku leeyahay 1000 grams ayuu ku leeyahay halka kilogram isaguna wuxuu ku leekaanayaa 2.2 pound ayuu ku leeyahay inta ayaynu maanta kusoo gabagabayn doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu